culimada ugu sarreysa culimadiinka Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay weerarkii isqarxinta ahaa ee dhawaan lagu qaaday magaalada barakeysan ee Madiina al-Munawwara ka oo lagu doonayay in lagu waxyeeleeyo malaayiin muslimiin ah oo ku cibaadeysanayay goobaha barakeysan ee ku yaala magaaladaasi. culimada ayaa waxa ay sheegeen in magaaladaasi ay tahay magaalo barakeysan isla markaana laga xarimay xumaan oo dhan. waxa ayna sidoo kale sheegeen in aysan jirin cid waxyeeleyn karta goobaha barakeysan ee ku yaala magaalada Madiina. Sheekh Abdallah oo ah imaamka masjidka Sunna ee xaafadda Soomaalida ee magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika ayaa ugu horreyn ka hadlay wanaaga iyo karaamada ay leedahay magaalada Madiina. meesha waxay ku soo degi jiray meesha Malakul Jibriil iyo Mikaa'il malaa'igta nabiga ugu imaan jirtay alayhi salaatu wassalaam. meeshaas iyada waa xaram muqaddasaadka islaamka kamid tahay muslimiintu ay leeyihiin. waa meel xaram oo aad u baraka badan. nabiga alayhi salaam dabcan fadaa'il aad u badan buu ku sheegay magaaladaas iyo khayrkeeda iyo barakada ay leedahay. daacunku ma galo dajaal ma gali doono. waxa uu leeyahay alayhi salaatu wassalaam al-Madiinatu haramun. المدينة وحرم إلهي بقى حرمي سبحانه وتعالى إن وقعد هذا لله ضد كذا إن واحد بقى لوجست إن حمان الله قصة ماهي مقال ذا حرم كروحي حمان لدونه روحي سود الرسية وحنا الله بحنين ظلمي أما الدين بدلد روحي مقال ذا سود الرسية أما روح لبعض طولا النوع عصوك لا صادمة لعنة إله كركي سهاء هاتو لعنة ملائكة كركي سهاء هاتو dadka oo dhan lacnadooda korkiisa ha ahaato. ilaahay ka aqbali maayo sarf iyo cadli midna sunna iyo farad midna ilaahay ka aqbali maayo. sidoo kale Sheekh Bahjuddin iyo Sheekh Saciid ayaa iyaguna dhankooda cambaareeyay weerarkaasi. walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan dareenkooda murugada badan ee ku aadan magaaladii Nabiga Kaleey salaatu wasalaam ama xaramkii Nabiga Kaleey salaatu wasalaam dadka aqoon gaabka ah oo waxa weeye sida khaldan u fakaraya oo dibka la raadsaday oo qarxiyay oo muslimiintii cabsi geliyay oo dhiigoodii ku daadiyay. aad baan uga xunnahay sida ay culimada iga horeysay sheegayna TV-ga Universal iyo kuwa kale ka qayb qaata arrimaha khayrka waan uga mahadcelinaynaa gaar ahaan arrintan iyada ah fursadda ay noo siiyeen inaan dareenkayaga muujino aan kaga soo horjeedno dhibaatadaas. xaramkana Ilaahay baa ilaaliya dibna looma geysan karo insha Allah ta'ala. diinna dee ma aha in masaajidii iyo magaranaysaa muxuu ahaayey xurumaadkii muslimiinta in la baabi'iyo oo hataa masaajidii lagu badbaadi waayo masaajidda lagu soo carari jiray. xasan kaafi maxamed shire telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town.